Soomaaliya waxay ahaan jirtay dal aad u baaxad weyn oo ay ka talin jireen saldanado aad u fac weyn, waxaana ka mid ahaa boqortooyadii Ifaad. Waxay ahayd saldanad Islaami ah oo ka talin jirtay dhul aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin gobolka Shewa ee Itoobiya ee maanta caasimadiisu tahay Addis Ababa, Harar ilaa Saylac. Itoobiya kala bar waxaa xukumayay boqortooyadii Ifaad. Gobolka Shewa ee bartamaha Itoobiya waxay ahayd xarun Islaami ah, waxaana laga helayay masaajid iyo culummo intaba. Ifaad waxay dagaallo la gashay xabashidii Itoobiya ee Abyssinia, kaas oo ku salaysnaa arrimaha diinta. Waqti dheer kadib burburkii Ifaad, waxaa la aasaasay boqortooyadii Adal ee saldhiggeedu ahaa Saylac, taas oo noqotay xaruntii Islaamka iyo xarunta ganacsiga geeska. Boqortooyadii Adal waxay ahayd boqortooyo Islaami ah oo awood badan, kana talin jirtay waqooyiga Soomaaliya, Jabuuti, bariga Itoobiya. Waxay noqotay awoodda ugu weyn ee Muslimiinta Geeska Afrika qarnigii 15 ilaa 16. Waa xilligii ay ugu awoodda badneed ee Imaam Axmed Gurey majaraha u hayay. Magaalooyinkii ugu muhiimsanaa xaruntana u ahaa waxaa ka mid ahaa Harar oo ahayd xarun diimeed iyo mid ciidanba. Xarunta ganacsiga iyo xiriiradana waxay ahayd magaalada Saylac, waana magaalo taariikhi ah. Axmed Gurey wuxuu ahaa hogaamiye ciidan iyo mid diimeed. Wuxuu ahaa imaamkii Adal ka dhigay quwad militari. Axmed Gurey wuxuu bilaabay jihaadka dhan ah boqortooyadii xabashida ee Itoobiya. Wuxuu qabsaday inta badan dhulka xabashida. Wuxuu dumiyey ciidamadii boqortooyadii xabashida ilaa ay ku sigteen inay baaba'aan, laakiin Boortaqiiska ayaa awood siiyey oo garab istaagay. Imaam Axmed Gurey 1543 ayuu ku shahiiday dagaal. Geeridiisa kadib, Adal waa daciiftay. Taariikhyahanadu waxay sheegaan burburkii Adal inay sabab u ahaa 4 arrin. 1. Geerida hogaamiyihii imaamkii dagaalka Axmed Gurey. 2. Faragelin shisheeye oo aad u badneed. 3. Khilaafka gudaha oo la kala dhex dhigay dadkii iyo boqortooyadii. 4. Dagaallo joogto ah oo kaga imaanayay xabashida Itoobiya iyo xulafadooda. Adal waxay ahayd difaac Islaam iyo awood Soomaaliyeed. Intaas haddaan kaga harno, waxaa kaloo jiray boqortooyadii Ajuuraan ee qarnigii 13 ilaa qarnigii 17 ka talinaysay badi dhulka Soomaalida. Waxay ahayd boqortooyo Islaami ah, quwad ciidan oo aad u sarreysana leh. Dalkana waxay ka difaaceen cadow badan oo isku dayay inuu qaato dhulkeenna. Dagaaladii ay galeen waxaa ka mid ahaa midkii ay la galeen boqortooyadii Boortaqiiska oo markaas ahayd quwad adag oo aan sahlanayn. Waxay ka soo warareen dhinaca badaha, waana la jebiyey Boortaqiiskii. Waxaa kaloo ka mid ahaa dagaaladii Gaalmadow ay Oromadu ku doonaysay inay ku qabsadaan dhulka Soomaalida. Waxay la kulmeen jab xooggan. Guushana waxay raacday boqortooyadii Ajuuraan. Waxay xiriirro caalami ah la samaysay Chinaha, Cusmaaniyiintii Turkiga iyo Carabta Bariga Dhexe. Waxay ahayd boqortooyo taariikh aan la soo koobi karin ku dhigtay baalasha dhiganayaasha. Ujeedkaygu waa dulmar oo kaliya. Waxaan rabaa inaan isku xiro xilliyadii la soo joogay iyo xilliyada aan u joogno maanta. Boqortooyooyinkaas waaweyn kadib, waxaa jiray kuwo yaryar oo meelo gaara ka jiray. Waxauna ahaa dhulkeennu mid uu ku dhici waayey gumayste kasta ee isku daya inuu damco. Waxaana gaashaanka u daruuri jiray rag aan geerida ka baqin oo guul mooyee gunnimo hagoogan. Waxay marxaladuhu sidaa ahaadaanba, dhulkii Soomaali ka talin jirtay sida gobolka Shewa ee hadda Itoobiya caasimadoodu ku taallo iyo dhul kaloo la mida ayaa laga qabsaday, lagana soo riixay xilligii boqortooyooyinkii awoodda badnaa laga itaal roonaaday. Waxaana xabashida ku batay damacii ahaa inay qabsadaan dhulka Soomaalida. Haddaba qaybteena labaad ayaan ku eegi doonaa. Nala soco.